magaalada Hargeysa caawa markii ugu horeysay waxa goor dambe oo habeenimo laga fulinaya olole nadaafadeed oo noqonaya markii ugu horeysay laga fuliyo magaalada ololahan ayaa waxa ka qayb qaadanaya qaar ka mid ah dadweynaha ciidamada dendimiska iyo sidoo kale howlwadeenada iyo shaqaalaha dawladda hoose ee Hargeysa waxaana uu yahay olole kor loogu qaadayo bilicda magaalada iyadoo ay socdeen maalmihii u dambeeyayna olole lagu banaynayo wadada halbowlaha ee suuqa magaalada Hargeysa xogayaha guud ee dawladda hoose iyo sidoo kale agaasimaha waaxda bilicda ee dawladda hoose ayaana faahfaahin ka bixiyay hawlaha socda caawa waxaan halkan si rasmi ah uga bilaawnaa hawlgal runtii kor loogu qaadayo nadaafadda iyo bilicda caasimadda oo si xoojinayno shaqooyinkii awalba socon jiray ee xaadista ciidda magaalada oo aan runtii doonayno in la dardargeliyo iyadoo tiim kooban inta hore badan u gali jiray hase haatee caawa ay ka qayb qaadanayaan dhammaan mas'uuliyiintii ay ugu sarreysay caasimadda oo horkacay kusimaha duqa caasimadda iyo xogayaha dawladda hoose xildhibaanadii golaha saraakiisha kale iyo degmooyinkii runtii waa farxad weyn bay noo tahay saacadda aynu joognaa 10kii habeenimo qorshahayagu wuxuu yahay inaanu ka bilowno goobtii aan maanta banaynay ee runtii saldhiga dhexe ilaa iyo masjid jaamaca in aan runtii goobtaasi aan nadaafadeedii sugno ciidda guud ahaan wax kastoo ciid iyo xashiish iyo nooc walba yahayna runtii la saxar tiro ayaa qorshahayagu yahay ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inaan goobtaa gaari doono saacaddii doonto baan ugu qaadato in badan baanu ku celcelinaynay magaalada xanaanada nadiifiyo runtii waxaan caawa diyaar u nahay inaan magaaladeena intaa yar ee kooban kolba inaynu qabsanno deetana aynu wax wanaagsan oo fiican aynu ka qabanno aynu bilicdeena kor u qaadno sidoo kale waxa aynu halkan ka samayn doonaa hawlgallo kale oo iyaguna garab socda oo tiimamkii ama kooxihii fayadhowrayaasha iyaguna shaqaalaha ku jira oo eegaya hodheelada iyo dukaamada wixii furan iyaguna eegaya alaamada dhacay hawlgalladu way badnaan doonaan weega soo socdo dhan way istaba joog sidaan hore u tilmaanay waxaananu bulshada ugu baaqaynaa in horumarka caasimaddu waa bilaabmay shaqadanu haynaana ma laha hadh iyo habeen waananu saacad walbana qarankayga iyo magaaladeedii inaanu shaqayno heegan baanu nahay waxaan halkan aan leeyahay guushaada waa lala jiraa ee geesaha ka ahaani guusha soconaysa inuu qofku wax ku yeesho taariikhda soconaysa inuu wax ku yeesho aad iyo aad bay u qurux badan tahay meelii dadku maraya waa la samaynayaa baarkinada waa la samaynayaa horumarkii waa sida uu bilaabmay baarkin halkaa lagama ogola baabuur halkaa la iska dhigan maayo inta halkaa laga kaxeeyey miskiin yar oo ku ganacsanayay oo laga yaabaa inay halkaa deeqoos daruurigiisa ay ka soo baxaysay nin gaari aayar iska dhigto iskaga taxtaxaashaya iyadana taa ka ogolaan mayno waana nacasima haddii dhacdo ugu dambeyntii waxa cusub mudan in hawlgalkan ku cusub magaalada Hargeysa uu ku soo beegmayay xilli ay hawlaha dawladda hoose ee mas'uuliyiinta cusub ee dhawaan la soo doortay ay wadaan ay ku socdaan si dardar leh وخضر إسماعيل محمد خضر دمال إسماعيل شبتاوي وركب مقبهية عالم قسم نيس Hargeysa